waxa uu dhex wareegaa wadamada gaar ahaan wadamada Carabta isagoo raadinaya masaakiinta yar ah si uu wax ugu qabto si hoose isagoo aan soo bandhigin wajigiisa isagoo ku sita shadad dhabarkiisa ay ku sawiran tahay calanka waddankiisa waxba lagama yaqaan magaciisa mooyaane Qais Al-Imarati soo gudbiya barnaamijka la yiraahdo qalbi idmaan wiilkan dhalinyarada oo bixiya wax ka badan 12 milyan sanad kaliya isagoo aan soo bandhigin cidda uu yahay waa sida cidda jecel khayrka iyo samaynta khayrka saddexdii sano ee barnaamijku socday lama arag cidda uu yahay xitaa lama garanayo magaciisa dhabta waxa uu aaminsan yahay inay farxadu ku jirto wax bixin Qais waa soo gudbiya barnaamij khayriya oo maalgeliso hay'adda bisha cas ee Imaaraadka fikradda barnaamijka kooban waa inay raadiyaan dad u baahan caawimo si ay noloshooda ugu bedelaan ayna ugu fidiyaan lacag ay ku furtaan mashaariico ama ay si ay naftooda ugu filnaadaan waxa uu helay barnaamijyadaas daawasho badan caalamka oo dhan markii la soo bandhigay barnaamijyadiisii ugu horeeyay 2018 waxaana socda guusha barnaamijka ilaa haddeerta ayagoo wareega Qais iyo dadka kala shaqeeya barnaamijka waddan ilaa waddan ayagoo shida hal ku dhig uu yahay adduunyo la sadqay annaas linaas usbuucyadii la soo dhaafay Qais waxa uu joogay waddanka Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa isagoo fidinaya dadyo isku jira ajaanib iyo Soomaaliba mashaariico ay ugu bedelayaan noloshooda isagoo sidoo kale ka qayb qaatay dib u habeynta garoon ku yaal xaafad ka mid ah xaafadaha Hargeysa isagoo dayactiray waxyaabihii uga baahnaayo dhan haddii ay tahay meesha lagu fadhiista iyo haddii ay tahay bira iyo haddii ay tahay gidaarkaba isagoo fiican dib u habeyn ugu sameeyay barnaamijku waxa uu noqday barnaamijyada lagu hadalhaynta badan yahay iyadoo dadka qaar u qaateen in waddanka Imaaraadku uu doonayo in kor lagu qaado dadka kale u qaateen inuu yahay barnaamij khayriya oo ay sheegeen in ay arintaas hore ay jirto iyadoo oo ku sababeeyay inay wanaajinayaan fikirka caawinta dadka masaakiinta oo la soo bandhigayo dhibaatooyinka haysta si ay dadka kale ugu dhiiradaan in ay wax baxsadaan oo